السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلقصد هذا برنامج كعطك الشعب كويدن كإيمان تيفي كالسن حرونتي سمجال نيروبي برنامج واحد ده دهنا يعني وكان عبد القادر حسين قضب كانوا التضباط كان كفلا قين تونا وحنا قان إياها abaaro baaxad weyn ayaa ku dhuftay dhammaan geeyga Soomaaliyeed waxa jira dadweyne Soomaaliyeed oo la ildaran biyo la'aan badan iyo caafimaad darro kuwaasoo hadba raxraxan u soo gaarayay meesha markaasi magaalo u dhow si ay ugu helaan waxay nafta ku cishadaan hadaba daawadayaasheena ku xiran TV-ga kalsan gaar ahaan barnaamijka codka shacabka ayaan u bandhignay aragtidooda sidee ummadda Soomaaliyeed ay soo kaashan karaan si ay u caawiyaan walaalada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan macluushuna ay ku haysato dhammaan gobolada Soomaaliyeed dadweynuhuna waxay يراهدين aragtidooda bal daawasho wanaagsan magacaaga ku bilaabay salaam nuur samaan maxamed waxa jira abaaro badan oo saameeyay geeyga Soomaalida ku nooshahay marka hadii aad fikirka ka dhigto ama aragtidaada la wadaagto sidee abaaraha saameeyay geeyga Soomaalida isaga kaashan karaan ama ay u caawin karaan walaalada Soomaaliyeed horta Soomaalida waa runta wasada sheegtay abaaro badan ay jiraan dadku way rafaadsiin way dhibaataysiin dadkeena akoonti loo furo dadkeena iskaashadaan dadka maanta siyaasadda inta badan iska mashquulsan dad Soomaaliyeed oo hawaare iyo xoolaha ka baabeen oo dhibaato ay jirto dadkeena soo naxariisano soo gurmano macnaheedu weyn cali sallallahu wuxuu dhahay islaamku mu'minka waa sida faraan oo kale macnaheedu waa guri dhisan oo kale macnaheedu walaalaheena ay abaar ku rafaadaan dhamaadaan xoolaha ka dhamaadaan annagana aan tan ka galmo dadna ma xumo ilaahayna wuxuu dhahay markaad soo naxariistaan inay naxariisanayo marka waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed ama qurbaha joogaan ama Nairobi ha joogaan ama nin kastaba qaybtiisa inuu qaato oo dadka aan garbistaan oo xoolo ama akoonti loo aruuri oo dadka abaarihi isku gurmada ilaahayna aan barino soo ilaahay roobno keen aanan iscafino macnaha ilaahay Allah ayadu wuxuu ku leeyahay yursil as-samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا إلهي استغفار آية كوري صحيح هذا استغفار تأبدسين ودمدا إلهي أدمدا في إلهي حكينا يا رب يا عرور يا الدنيا وحمرك أبارتنا سوى عري إلهي نقول عادي طول ميجا يدبعتها يقبيالد يكلفيك يدتكنوا نحرسين إن يلسوا أنا وحني إلى دتكنا صومالي سكون قطه إلهنا باردو معنا هذا اسكو حرنا نقولنا هذا سون حريصنا نقولنا مركز إلهي نون حريصنا رومنا كينا دتكنا ناون قرقار أنت صنديله waxaa jirta abaaro badan oo saameeyay dalka Soomaaliya marka sidee Soomaalidu ay saaka kaashan kartaa miyo caawin karaan walaalada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dhammaan geeyga Soomaaliyeed runtii waa su'aal aad muhiim ah waxa la saaka kaashan karaa Soomaaliya oo is aaminto soo kalsoonaato dal idibad loo kaco in loo gurmado dadka abaarta saameysay deegaanada waa ogtahay waxa ka jiro maanta haday noqonayd gudaha iyo haday noqonayd dibadda in loo istaago waxa muhiim ah la dadaalo nin walba soo fikir ahaan la isku raaco in dadka iyo dunyada loo gurmado si loo badbaadiyo maatida halka ku dhamaanayso ilaahay waa xad badbaadiyay maxaa la jiray ani hadda waxaan ka imaaday deegaanada Jubbooyinka gaar ahaan degmada Afmadow ilaa iyo xuduudka deegaanada Soomaaliya la wadaagto Kenya sida Doobley Qoqaani Taabdo Xayo iyo ilaa dhankaas baadiyaha runtii abaar سايد هاد كمان موقنين ويكاكس بدين الحمد لله إله معناتها إسكاله أبار ويجرتا صومالي جار هان قبل باي بقول بس هذا جبوين كأد بيويرتاهي ديجاند هذا هنكي ماذا عن بوقشة كنت جون مدة شنت بريكو مغنى أد بالله فينا هذا نقول هاد دان كمحل يجري أبارتا دان كبا وحول با ويكدس ناين بس أبارتا مير والبا ويكجرتا Soomaali guud ahaanba balse hadda deegaanada Jubbooyinka aad bay u yartahay runtii wax saa u dhinta ma jirin waxyaalo yar way jireen waxa runtii farxadii ah inaan maqlo in kaalin laxaad weyn ka geysteen qurba joogta Jubbaland hadii aan gaar ahaan qurba joogta degmada Afmadow in ay sameeyaan ceelal ilaa hadda shaqadooda ay socoto ceel waxa jira oo kale Afmadow laga qoday hadda iska kaashadeen ganacsatada iyo dadweynaha shacabka ku dhaqan magaalada Afmadow iyo maamulka halka ka arimiyo Jubbaland abaartuna waa abaar aad u saameysay dad badan runtii waa mid aad u fogaatay waxaan Allah ka baryaynaa umar walba Ilaahay ka barinaa dad bini aadan ah waxa la madeeqsin karo balse Ilaahay waa waxna deeqsin karaa in Ilaahay abaartan si dheeraatay naga samata bixiyo
roob caadil ahna ilaahay una siiyo dhammaanteen mar walbana aan ku ducaysano waxaa kaloo farxad ii ah inay xalay culummada waaweyn ee dalka Soomaaliya ay soo saareen baaq ah in 5 bari oo soon ah la soomo oo soonkaas oo loogu talagalay in ilaahay lagu baryo si ilaahay uu sabto bixiyo dadkan baayba kol ku dhamaan hayaan jaajada rafaadku u rafaadayaan oo roob ilaahay laga baryo maanta arbacada ilaa sabtida bay culummada sheegeen Talsan TV-na aad baan wariyaasheeda u mahad celinayaa wareysiga qiimaha badan dadka mikrofoonka la axmarayaan bulsho walba iyada isku tashata waxaan doonayaa Soomaaliya inaan isku tashano oo dalkeen horumarsano had dawlad baan noo dhalatay insha Allah sida hore waan ka sii fiicnaanan hadduu Ilaahay idmo magacayga waa Axmed Hayba Cabdullaahi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi run ahaantii sidee Soomaalida waxa jirta abaaro badan oo saameeya dalka Soomaaliya marka sidee Soomaalida meel kasta waxa joogaan ay isaga caawin karaan ama ay u caawin karaan walaalada Soomaaliyeed ee abaartu saameysay wallaahi run ahaantii dadka Soomaalida waa dad walaalaheena kulley dadka abaaraha ay saameeyeen waxaan u aragnaa abaartu waa wax Ilaahay wato haddii Ilaahay laga baryana waa wax uu Ilaahay ka kaaftoomin karo abaarta iyada soo waxaa looga badbaadi karaa mid koowaad aniga fikirkayga in Ilaahay la baryo secondly haddana waxaa looga badbaadi karaa in la wada tashado oo dadkii loo gurmado dadka gobolada Baay iyo Bokool iyo Jubbooyinka iyo Gedo meel walba ku dhamaanay media aan ka aragno anaga kulli hadda Nairobi aan ku noolnahay wax hadda abaartaas iyo waan u maqalnaa media uma ka aragnaa laakiin kulaalkeeda waan soo gaaray Nairobi oo saan kulul waligeed ma arkin waxa la isaga kaashan karaa dadka in loo gurmado dal iyo dibadba in loo gurmado runaantii aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ka soo jeedo gobolada Jubbooyinka marka runaantii dhawaanihii dambana sanadihii dambe waxaan ahaa qurbo joogta gobolada Jubbooyinka waxaan ku noolaa wadanka South Africa waan maqlay inay jiraan abaaro fara badan runaantii maadaama aan ahay dhalinyarada ka soo jeedo gobolada Jubbooyinka gaar ahaan aniga magaalada aan ku dhashay maadaama aan ahay qurbo joogtii maqnayd runtii waxaan ku tashanay inaan ka caawino maxalli jiray abaaraha meesha ka taagan iyo oonka runtii aniga waxaan ku dhashay magaalada ka tirsan gobolka Jubbada Hoose Bilis Qooqaani run ahaantii waxaan sameynay gurmad fara badan waxaan sameynay matooraan sameynay runtii aad baan ugu dadaalnay magacay Liibaan Usmaan Aadan waxa jira abaaro badan oo dalkii Soomaaliya horta sidee Soomaalida meel kasta ku noolaadaan ay walaaladu u caawin karaan horta abaaro badan way jiraan dadku waxa waaye dadka abaaraha haysto in horta Ilaahay aaminaan oo Ilaahay tala saartaan oo Ilaahay ay baryaan oo ay sideen qarmo midoowe hay'adaha inay dhahan maaha oo Allah subhanahu wa ta'ala tuwan oo sida wadamada islaamo oo wadamada islaamka ay la hadlaan ay dhahan yaani dadku waxa la gaaro hada dad waxa jiro oo isdiidan cunto waalidadina dad wax unay waysan yihiin marka dadku ummaddu waxay isku yimaadaan in qof walba tabartiisa oo keeno oo isku daro oo ummadda la gaaro taasaan dhihi lahay in Ilaahayna naga saaro oo roob iyo wax degdeg Ilaahay noo keeno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاعي وعبد القادر محمد عبد الله waxaan aad iyo aad u dareemayaa dhibaatada dadka abaaraha haysato ee adduunka ku dhaqan khaasatan East Africa Horn of Africa Soomaaliya dadkan baaba'aya ee dhamaanayo waa ummadda Soomaaliyeed ku dhawaad ilaa 2 milyan 3 milyan ku dhawaad baa waxay la tabar daran yihiin macluul taasoo aad iyo aad wax looga naxaa waxaan dadka islaamka ah luqad kasta ay ku hadlaan aan ku bogaadin lahaa inay ummadaha islaamka gargaaraan haddaan ka bilaabo ummadda Soomaaliyeed ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiraahdaa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa hawaaye markan kaliya ah chance loo haystaa in qofka uu janno ku shaqaysto sadaqada وحواي وحياة فربنا بيتقال صدقة عمري بن آدم كوي دارس القفك دو قفك حنوسين هاي أصير حنوسين هاي وصدق الله بحو وحيو سهل إنه دوبه ساس درته
waxaan ku waanin lahaa ummadda islaamka khaasatan kuwa Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ama qurbe ama gudaha meel walba ay joogaan in allaale inta codkayga maqlayso fadlan walaalayaal u gargaara walaalihiina muslimka ah insha Allah ta'ala khayrkana isku dardaarno assalamu alaykum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو أشر مارك هذا ورسمسيات شعبك الصومالي وحان ودريا تهنيد وين أي كوخن عن أي مسكعة وش قيسيان أبارها الصعدة وحيالة وفروضي أي كوكا سدين اسكون نقدان هاي سعفيان قامها هاي خبصدان دولة هامي سنادان دولة الشيشيان مرول بتحفظ الناوي لشينا بدأ يكون ماذا اتقوا الله ده الشعب الصومالي وحا اني شيغيا كله نمنكا جيبابكودا واوين شعبك walaalahooda oo Soomaaliyeed oo waaweyn oo jeebabkooda waaweyn waxaan ka codsanaynaa inay u gargaaraan walaalahooda dhibaataysan nin walba oo Soomaaliya oo waxa $1 hadoo akoonto ku shubo wuxuu $1 kaliya wuxuu qabanayaa wax weyn شعب الصومالي اسكون نقطة صومالياتين هالقضية هالهوياتين إلهي النقطة توبة يا ربي توبة ده إن شاء الله بإذن الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حالي حسن أحمد مركو حان كعد سنة صومالي ده إني أدعيان صومالي ده دباتيسن وأبارة هايسته مركو حان كعد سنة إني صومالي ده ميل والبيت جوكتا إنه إلهي أبارتك بحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الله عبدي. waxaa jira abaaro badan oo dalkii saameeyay. Sidee Soomaalida isku caawin karaan ama walaalooda dhibaataysan u caawin karaan? Abaartada. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa in ay abaaraha ka jira wadanka Soomaaliyeed in ay gacan weyn ka qaataan oo ay aad ugu firfircoonadaan oo lacag u dhiibaan. Siba dadka siyaasiyiinta madaxda Soomaaliyeed baarlamaanka madaxweynayaasha ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo qurbaha ay ka joogaan inay gacan weyn ka qaataan ummadda Soomaaliyeed abaaraysan ee abaarta u leenaya oo wali abaarta ku dheeraatay inay caawiyaan oo gacan fiican ka geystaan intaas baa u baaqaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Xasan Qaliif waxaa jira abaaro badan oo dalkii Soomaaliya saameeyay Soomaalida walaalada dhibaataysan u caawin sax bismillaahir rahmaanir marka hore waxaan leeyahay horta wax walba sababa keeno aniga marka koowaad waxaan ugu baaqayaa dad muslimiin aan nahay awal markii abaarahan iyo dhibaatadan ay dhacdo dar ilaahay loo noqon jiray waa la roob dooni jiray ilaahay baa la barin jiray horta alla wax ka weyn ma leh waxaan leeyahay muslimiinta dhan inay alla baryaan marka hore inay alla u noqdaan oo ilaahay baa muxuu ahaay raxmadda keeni kara ilaahay baa gacantiisa wax ku jiraan in ilaahay la baryo marka koowaad marka labaad waxaan leeyahay dal iyo dibadba muxuu ahaay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inta Soomaali oo qurbaha ku nool waxaan leeyahay waa meeshii kale oo dadkaaga aad ku badbaadin lahayd maanta in dadkeena la badbaadiyo oo la istaago meel walba aan joogno la istaago muxuu ahaay meel walba aan joogno waxa xil naga saaran nin walba $1 maanta hadduu ugu deeqo muxuu ahaay qoys dhan bay kaafin kartaa marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gacanta isqabsato ha issaamaxdo waxa dhibaatada noo keena waa cuqdada iyo xiqdiga iyo dhibaatada aan ilaahay u noqono aan gacanta isqabsano walaalaheena dhibaataysan aan caawino nin walba waxa la wixii uu agoodo dadka ha ku caawiyo magacaaga oo bilaashula bismillaah alxamdulillaah العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين مقعي محمد waxaan ka hadlayaa abaaraha Soomaaliya ka jira dalkeena hooyo runtii abaaraha aad iyo aad way soo laalaabteen oo abaaro macnaa dhib badan waxaan leeyahay markay ummadda masaakiinta ah ee abaarahaasi xoolahoodii iyo naftoodii halista ku jirto in la caawiyo dawladda Soomaaliya ee hadda la magacaabay ee la doortay inay gacan ka geysato abaarahaasi ilaahay wuxuu yiri tacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala al-ithmi wal-udwan marka wanaaga alla isku caawiyo waxyaabaha faxshiga iyo waxyaabaha aan wanaagsaneyn intii lagu mashquuli lahaa iyo qabyaalad iyo waxyaabaha aan macnaha sali raadleen oo ummadda Soomaaliyeed dan ugu jirin waxa wanaagsan in ummaddaas masaakiinta ah ee loo sameeyo gargaar iyo biyo iyo wixii loo awoodo oo macnaha ummaddaas la siiyo si yani abaarahaasi looga baxo teeda kale in la sameeyo waxyaabo dib u heshiisiin dadka inay iscafiyaan uqdada iska saaraan
waxyaabo badan oo waxaa jira macnaha oo dadkaas lagu caawin karo marka sidaa darteed waxaan farayaa dadka ganacsatada dadka maxaan ku leedahay wax awoodo ay wax haysta sida shirkadaha iyo NGO-yada dadkan waxyaabaha ku mashquulsan inay dadka masaakiinta ah ay caawiyaan waxaa jiro ganacsiyo badan iyo shirkado badan waaweyn oo Soomaaliya ka shaqeeya kuwaas oo hadda u dhow caawin kara awooda inay caawiyaan dadka masaakiinta ah marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala dadkaas inay caawiyaan ilaahay alla baryo dadka sabaaraha ilaahay ku dulqaado annagana macnaha insha Allah taala aan noqono kuwii caawin lahaa oo garab siin lahaa oo maxaan ku dhahaa dadka masaakiinta u mixlaa masantiin maarxin magacayga waxa la dhahaa Safiya Cabdullaahi Dhicis waxaan salaamayaa madaxweynaheena Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينا waxaan kugu soo dooranay dar Ilaahay shacabka waxay kugu soo doorteen dar Ilaahay madaxweynena ciyaar maaha qofkii alla ka cabsada oo Ilaahay dartii u dadaalana oo adduunka daacad ku dhaqdana Ilaahay carshigiisa laga harinaya adduunkana cisigu ka helayaa marka waxaa laga rabaa inaan sidii madaxweynayaashii hore oo maxay ahayd musuq maasuqa iyo dalkiisa u burburay aadan ku dhaqmin inaad Ilaahay wajigiisa ku dhaqantid dadka masaakiinta loo gargaaro sayid shacabkaas ku soo doorteen in Ilaahay dartii dadka ugu dadaashid insha Allah taala Ilaahay waxaan ka garjeenay inuu Ilaahay ku garab istaago dadka abaaru saameeyana awal baa hore u ballan qaaday ballankana waa mid Ilaahay agtiisa yaala wax ciyaar maaha ballanka adoomadaas ay kugu soo jeclaadaan waa inaad oofisid وكاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وهارون عبد القادر هذا النولان. waxaa jira abaaro badan oo dalka Soomaaliya saameeyay. sidee walaalaha Soomaaliyeed isaga caawin karaan taas dhibaatada? ها والله horta Soomaaliya dhibaatada haysato waa dhibaato aad iyo aad oo dadka u saameysay oo ay masaakiinta marka anagana hadaan dad oo walaalo Soomaaliya waxaan ka codsan lahayn dadka dibadda joogo Ilaahay irsaaqada muxuu siiyay dad wax badan uu siiyay marka dadkaana walaaleen waa inaan u naxariisano aqradeena u dhisano Ilaahay muxuu dhahay wax bixi waan ku saayideynaya marka aqradeena iyo adduunkeena hada dhisanayno waa inaan dadka walaalaheena gacan qabana marka sida magacayga waxa la Maxamed Xuseen Cabdi Kariin waxaa jira abaaro dalka Soomaaliya saameeyay ummadda Soomaaliyeed isaga caawin karaan dhibaatada haysta walaalaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxa isaga caawin kara iyagoo walaalahooda islaamka caawiya oo gacmaha isqabsada oo waxay u qaban karaan qaba dadka maalqabeenada lacagta leh waxaan kala oran lahaa la rabdano Ilaahay la bari wax tar kariya qaramada wax tar kara ma jiraan adduunyada ee ali weynaa abuuran ba dadka wax tar kara waxna siin kara marka in la ismaxo la iscafiyo ummadda Soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan ayuun ba abaaraha laga bixi kara marka abaaraha waa in la saar la isku qabsado la rabdano roob la sameeyo Ilaahay wax la weydiiyo laakiin hadii la yiraahdo inaan yaro cadaan wax weydiisan wax lagu helima marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ku inay gacmaha isqabsadaan isna cafiyaan ay qulubtooda isku sii daayaan si ay abaaraha u helaan Soomaalidu qoys Soomaalida koonfureed intaba ayaan ka codsanayaa inuu ummadda Soomaaliyeed يوسف عبد محمد الله والله السلام tahay adaa ka mahadcelina waxaa jira abaaro saameeyay dalka Soomaaliya sidee walaalaha Soomaaliyeed isaga caawin karaan ama ay u caawin karaan walaalaha waxay u caawin karaan horta walaalahooda inay u naxariistaan Ilaahay wuxuu yiraahdaa hal isku naxariista markaas aan leeyahay naxariisanaya ummadda abaaraha hadii ku soo laabta xaqooda ka imaadeen waa in Ilaahay loo noqdaa dadkana in midoobaan walaalaha abaaraha in si degdeg loo kaalmeeyo ganacsatada dadka dibadda jiro waa walaalihiina abaar markay imaadana dareenka iyo xoog leedahay waxa cunta weynaysa caafimaadkii marka waa dareemi karteen qofka ma dareemi karo markuu magaalo joogo wuxuu ku dareemi karaa markuu arko bulshada anigana waan dareemi karaa aad ugu xumahay dadka abaaraha ilaahayna waa in loo bariyaa oo culimada loo sheegaa in Ilaahay loo duceeyo saasaan ilaahay walaalayaal walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan ugu baaqayaa dadkeena islaamka ee baaba'aya ee abaaraha hayso ee haraadka u dhimanayo in Ilaahay dartiisa wax loogu aruuriyo sababtoo intaan dawladda shisheeye aan wax ka sugi lahayn waxaan idinka codsanayaa islaamnimo iyo Ilaahay dartiisa inaan isugu kaalmayno talabaad waxaan baaq aan u jeedinayaa dawladda cusub ee waddanka qabsatay marka ugu horeysa Farmaajo xil baad qaaday oo islaamka oo dhan aad ka wada qaaday walaalow waxaan kuugu baaqayaa oo Ilaahay dartiisa aan kuugu baaqayaa waddankeena waad og tahay dhibaatada ka socota rafaadka ka socota waxaana yeelayo xoogaa diinta xaggeeda ayaana dadkeena islaamka aan hoosna laga soo dhisin iskuulaha noola soo furay
manaahijiyaa noola suubiyey manaahijyadii noola suubiyey adugu waxaan ku soo barannay wax aana dadkeena islaamka aan waxba u taraynin walaalow waxaan kaa codsanayaa oo dawladda hadda aan ka codsanayaa iskoolada manaahijyada oo dawladda ay leedahay kow aasaaska inaad ku dartid kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtoo ah dadka iyaga diinta hadday fahmaan waxaan helaynaa kala badbaadin ninku xadgudbaaya lama arkaayo walaalow waxaan kaa codsanayaa waxaan u malaynayaa 74 ayaa waxaa noola dejiyey inaan af soomaaliga aan baranno marka walaalow waxaan kaa codsanayaa oo dawladda hadda la dhisaya aan ka codsanayaa oo ilaahay dartiisa aan uga codsanayaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga in lagu soo daro awalan cunuga markii kow looga bilaabo barimada in kitaabka ilaahay iyo farbarka lagu bilaabo 12 galaas oo iskuulka loogaga baxaayo in kitaabka ilaahay iyo sunnada ilaahay iyo faqiga iyo diinta ilaahay lagu barto intaas ayaan kaa codsanaya oo ilaahay dartiisa idinkugu soo dejiyey si aan ku kala badbaadno ee dadkeena ee dhibka ay ku jiraan iyo rafaadka ay ku jiraan ay uga baxaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda Soomaaliyeed waa inay horta isu gurmado oo gurmad xoog leh abaarihii waa kana hadda waa lagu dhintay leeyahay oo lagu dhintay maxay ahayd meeshan oo ahayd meelahan Jubbaland meelaha waa lagu dhintay leeyahay saaciibo waa inay Soomaaliyeed isku gurmato oo ay gacmaha isqabsato oo ma artay ay isku iscaawiso iyadoo ma iscaawin karto Soomaali wax iscaawin kara ma leh iyadoo ma iscaawin karto wax caawin kara ma leh dawladaha iyo waxa la sheegay hal kama jiro saaciib Soomaali waa Soomaali inay iscaawiso waa Soomaali maxamed yuusuf maxamed magacayga waxaa jira abaaro saameeyay dhammaan dadka Soomaaliyeed marka sidee walaalaha Soomaaliyeed isku caawin karaan dalay dibadda Soomaaliya iyo meel walba ay Soomaali ku nooshahay waxaan dhagaheena ku soo dhacay bariyahan in ay abaaro saameysan ay ka dhaceen wadamadeena Soomaaliya marka caawimaad diil laho waxa way Soomaali iyada isqabsan karto gacmaha iyaga is caawin karaan marka waxaan dhihi ganacsatada Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha joogta oo ku nool isdii Nairobi kamid ah ganacsatada waxaan ka codsanayaa in ay caawimaad u fidiyaan